haddii aad fiirsato filimkan oo aad dhamaysato xilli habeen ah dhab ahaantii waxaa tahay qof geesi ah oo wadnihiisu fadhiyaan. filimku wuxuu ku bilaabanayaa muuqaal gaaban balse xiiso leh, halkaas oo shimbir hawada ku duulaysa si lama filaan ah ugu dhacday daaqad guri. ka hor inta aynan si buuxda u fahmin waxa dhacay, muuqaalku wuxuu isu jarayaa howl xaflad ka jirto. waxaan ogaanaynaa inay tahay xaflad diimeed ay qoys yahuudi ah u dhigeen wiil qaangaaray. wiilka loo dhigay xafladan muhiimka ah waa Philip qoyskiisu waxay aaminsan yihiin inay jiraan makhluuqyo awood leh oo la nool bini'aadamka balse aan la arkin, kuwaas oo geysta gabood fallo xad dhaaf ah. laakiin Philip wuu ka soo horjeedaa aragtidaas, wuxuuna qabaa inay tahay aragti diimeed aan sax ahayn. markuu weynaaday, Philip waxaa loo aqoonsadaa qof aad u shaki badan. wuxuu ka shaqeeyaa telefishin isagoo ah martigeliya barnaamij diiradda saara dhacdooyinka maangalka aan ahayn ee ruuxaanta iyo jinniyada, laakiin ma aha si uu u xoojiyo dadka inay rumaystaan, balse ujeedadiisu waa inuu kashifo inay yihiin khiyaali. isagoo isticmaalaya barnaamijkiisa, Philip marar badan wuxuu soo bandhigay khiyaamooyinka ay adeegsadaan dadka la sheego inay yihiin ruuxaan, taas oo u keentay sumcad ah inuu yahay qof si geesinimo leh u diida oo u burburiya sheegashooyinka ka sarreeya dabiiciga. inta badan shaqadiisu waxay u badan tahay baaritaan iyo dabagal, isagoo isku dayaya inuu ogaado runta ka dambaysa sheekooyinka qarsoon ee dadka badankood iska aaminaan, weliba si shaki la'aan ah. marka laga reebo koritaanka diimeed ee adag ee uu soo maray, qaab fikirka Philip sidoo kale waxaa si weyn u saameeyey qof uu si qoto dheer u qadariyo oo ah cilmi nafsiyahan caan ah oo lagu magacaabo Charles. mid ka mid ah daraasadaha uu sameeyey, Charles wuxuu muujiyey sida waxyaabo badan oo dadka u fasirtaan inay yihiin wax ka sarreeya dabiiciga ay dhab ahaantii u yihiin waxyaabo caadi ah oo leh sharaxaad cilmiyeed. wuxuu daawaday mar uu la kulmay haweeney sheegtay inay weli maqli karto codka qof qoyska ka mid ahaa oo dhintay. Is she possessed? No, she's angry that her husband died. Why do you think the voices come through you, Jean? Daddy sees everything. Jesus. For the vase, I did that. kadib kormeer iyo xog waraysi, Charles wuxuu soo bandhigay in waxaasi ay dhab ahaantii ahaayeen malowaal ka yimid qalbiga qof aan weli si buuxda u aqbalin dhimashada qof uu jeclaa. arrintan waxay sii xoojisay aaminsanaanta Philip ee ah in dhacdooyin badan oo loogu yeero kuwa ka sarreeya dabiiciga ay dhab ahaantii leeyihiin sharaxaad aad u macquul ah. si kastaba ha ahaatee, maalin maalmaha ka mid ah wax aan caadi ahayn ayaa dhacay. Charles si lama filaan ah ayuu u baabay isaga oo aan wax raad ah ka tegin. qofna ma oga halka uu aaday, tilmaanta keliya ee ka hadhayna waa gaarigiisa oo laga helay meel u dhow gurigiisa isagoo madhan islamarkaana albaabkiisu furan yahay. in muddo ah iyadoo aan wax war ah laga helin isaga ayaa galab Philip wuxuu helay warqad ka yaabisay. warqadda waxaa qoray Charles laftiisa. gudaha warqadda, Charles wuxuu sharxayaa inuu weli nool yahay islamarkaana hadda keligiis ku nool yahay xaalad aad u liidata gudaha guri duug ah oo ku yaala duleedka magaalada. Philip oo xiisa u qaba la kulanka Charles ayaa si degdeg ah u go'aansaday inuu booqdo gurigaas, laakiin kulankii uu maskaxdiisa ku hayay ee ahaa mid diiran oo soo dhaweyn leh wuxuu noqday mid aad u yaab badan. halkii uu si naxariis leh u salaami lahaa Philip, Charles wuxuu u muuqday mid isla weyn oo xitaa ku jeesjeesa shaqada telefishinka ee Philip ka shaqeeyo. intaas kadib, Charles wuxuu Philip u soo bandhigay challenge isagoo u dhiibaya 3 kiis oo qarsoodi ah oo uu sheegayo in aan si macquul ah loo sharxi karin. Charles xitaa wuxuu qiranayaa in 3dan kiis ay yihiin kuwa ku sababay inuu rumaysto in laga yaabo in waxyaabaha qaar aan lagu sharxi karin caqli iyo cilmi keliya. sababtaas awgeed, Philip waxaa laga codsaday inuu baaro kiisaskaas oo uu caddeeyo in weli si caqliyeysan loo sharxi karo iyo in kale. si degan ayuu u dhegaysanayaa Philip arrintan, balse wuxuu dareemay jahwareer yar. sanado badan wuxuu Charles u aqoonsanaa qof si joogto ah u caddeeya in dhacdooyinka ka sarreeya dabiiciga aysan dhab ahayn, balse hadda isla ninkaas ayaa u muuqda inuu bedelay fikirkiisii. si kastaba ha ahaatee, Philip ayaa ugu dambayn go'aansanaya inuu aqbalo challenge-ga. halkaas ayuu ka bilaabmay safarka Philip ee baaritaanka 3da kiis ee qarsoodiga ah. I have seen your work. It's shit. 3 cases. To debunk and disprove it's all true. We couldn't explain 3 cases that aren't. si kastaba ha ahaatee, kadib markii Philip ka baxo qolka, wuxuu arkayaa humaaga qof qarsoodi ah oo xiran jaakad oo taagan Charles gadaashiisa, balse wuu ka sii dhaqaaqaa. kadib waxaan arkaynaa Philip oo keligiis fadhiya xeebta isaga oo ka fikiraya wixii uu la soo kulmay. weli way ku adag tahay inuu rumaysto in ninka uu sidaas u qadarin jiray muddo dheer uu hadda qirayo suurtagalnimada wax ka sarreeya dabiiciga. isagoo isku buuqsan ayuu arkayaa 3 dhalinyaro ah oo wax yar u jira meesha uu fadhiyo. mid ka mid ah ayaa wiil kale si xun ula dhaqmaya, halka wiilka saddexaad uu iska taagan yahay oo uu daawanayo isagoo waxba samaynayn. muddo gaaban kadib, baaritaanka kiiska koowaad ayaa ugu dambayntii bilaabmaya. Philip wuxuu la kulmay nin la yiraahdo Tony oo ah waardiye habeenkii ka shaqeeya isbitaal ku yaala England. nolosha Tony ma fududayn. xaaskiisa waxay u geeriyootay kansar 23 sano ka hor, gabadhiisana 5 sano ee u dambaysay waxay saarnayd sariirta isbitaalka sababo la xiriira xaalad caafimaad oo naadir ah. xaaladan qofku wuxuu u muuqdaa la yaab sababtoo ah indhihiisu way furan yihiin, laakiin jirka intiisa kale ma dhaqaajin karo gebi ahaanba. kadib, Tony wuxuu Philip uga sheekeeyey dhacdo la yaab leh oo uu habeen meesha shaqada kala kulmay. wakhtigaas wuxuu gudanayay waajibaadkiisii caadiga ahaa gudaha dhismaha isbitaal maskaxeed duugoobay. habeenkaas wuxuu la shaqaynayay shaqaale la yiraahdo Mark, balse 2 qaybood oo kala duwan ayay kala joogeen, waxayna ku wada xiriirayeen fooneeyaha. Tony wuxuu u fadhiyey si raaxo leh, laakiin nalalkii ayaa si lama filaan ah u damay. Hello? Marek? Tony wuxuu soo shiday matoorka korontada, laakiin markii uu ku soo laabtay booskiisa wuxuu arkay in galaaskii miiska u saarnaa uu ka muuqdo albaabka agtiisa, sidii inuu qof geeyey halkaas intii uu maqnaa. Tony wuxuu isku dayay inuu iska indha tiro dhacdadaas, wuxuu ku fariistay kursigiisa, laakiin in yar kadib haddana korontadii ayaa tagtay. mar kale ayuu aaday matoorka si uu u soo hubiyo, laakiin Tony wuxuu arkay xariiqmo la yaab leh oo ku yaala matoorka, una muuqda cidiyaha 5 farood oo bini'aadam ah.
markaas ayuu Tony bilaabay inuu rumaysto in qof uu si qarsoodi ah u soo galay dhismaha. wuxuu og yahay in Marek uu joogo dhismaha kale, marka waxaa cad inuusan isaga ahayn. isaga oo dareemaya welwel, Tony wuxuu go'aansaday inuu hubiyo qolalka bukaanada. si uu naftiisa u dejiyo, wuxuu shiday raadiyaha codkana wuu dheereeyey, kadibna wuxuu isku dayay inuu Marek la xiriiro isagoo adeegsanaya fooneeyaha, wuxuuna hubiyey in matoorku dib u shaqaynayo. wuxuu go'aansaday inuu dhex wareego luuqyada mugdiga ah ee dhismaha. si uu naftiisa u dejiyo, wuxuu istaagay qolalka bukaanada hortooda si uu sigaar u daarto. si lama filaan ah, Tony wuu naxay markii uu arkay gabar yar oo xiran dhar jaalle ah oo hortiisa ka soo muuqatay kadibna dhuumatay. isla markiiba wuxuu eegaa hareerihiisa isagoo isku dayaya inuu xaqiijiyo waxa uu dhab ahaantii arkay. haddana mid ka mid ah sariiraha bukaanka ayuu ku arkay qof uu si fiican u yaqaan, taas oo ah gabadhiisa. gabadhu waxay fadhidaa sariirta iyadoo si tartiib ah madaxa u ruxaysa. Tony si taxadar leh ayuu ugu dhowaaday, laakiin markii uu ugu dambayn gaaray sariirta, wixii uu arkay wuxuu noqday tirtiraha dhulka. xaaladda ayaa sii noqotay mid cabsi ah kadib markii korontadii mar kale la damiyey. Tony wuxuu dib ugu laabtay matoorka korontada si uu mar kale u hagaajiyo, laakiin markan wuxuu ogaaday in qof si ula kac ah u jaray fiiladii matoorka, taas oo sii kordhisay shakigiisii. wuxuu bilaabay inuu hubiyo qolalka bukaanada mid si uu u xaqiijiyo in uusan jirin qof soo galay dhismaha. ugu dambayn wuxuu gaaray qolka lambarkiisu yahay 92. albaabka markii hore si adag ayaa loo xiray, balse hadda wuxuu u muuqdaa inuu furan yahay sidii wax qof hadda uun galay. si taxadar leh ayuu Tony u riixay albaabka si uu u fiiriyo. gudaha qolka wuxuu ku arkay saf boombilooyin ah oo si nidaamsan loo dhigay. si kastaba ha ahaatee, waxaa jira mid u muuqda mid ka duwan boombilooyinka kale, sababtoo ah waxaa ku daboolan maro, islamarkaana wuxuu u muuqdaa inuu dhaqdhaqaaqayo. isagoo aaminsan in qof halkaas ku dhuumanayo, Tony si degdeg ah ayuu ugu dhowaaday wuxuuna ka qaaday maradii. laakiin waxay noqotay boombilo caadi ah sidii kuwan oo kale. si lama filaan ah, albaabkii uu ka soo galay ayaa keligii si xoog leh isu xiray. kadib qolka mugdiga ah dhexdiisa, Tony wuxuu arkay gabadhiisa oo muuqaal kale leh. si tartiib ah ayay ugu soo socotay ilaa ay far ka mid ah faraheeda afka ka gelisay. kadib markii uu maqlay sheekadan, Philip wuxuu isku dayay inuu helo sharaxaad kale isagoo booqanaya wadaad kaniisad ku sugan oo horay u maqlay sheekada Tony. wadaadku wuxuu yidhi tan iyo markii uu la kulmay dhacdadaas yaabka leh, Tony wuxuu noqday qof wanaagsan. xitaa wuxuu markii ugu horraysay sannado badan kadib booqday isbitaalka ay daawooyinka ka qaadanaysay gabadhiisa si uu u soo booqdo. wax lama filaan ah ayuuna kala kulmay booqashadaas. sida uu sheegay dhakhtarkii daweynayay, garaaca wadnaha gabadha ayaa si xawli ah u kordhay markii Tony uu istaagay agteeda. Tony wakhtigaas wuxuu dareemay sida gabadhiisu run ahaantii u rabtay inay aragto isaga kadib markii ay muddo dheer kala maqnaayeen. dhegaysiga sheekadan wuxuu Philip ka dhigayaa inuu mar kale ka fikiro noloshiisa. isaga oo aan wakhti lumin, wuxuu markii ugu horraysay go'aansaday inuu booqdo aabbihiis oo hadda xanuunsan kadib markii uu ku dhacay stroke. kadib marka uu dhammeeyo baaritaanka kiiska koowaad, Philip wuxuu u gudbaa kiiska labaad, kaas oo ka bilaabmaya guriga nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Simon. marka Philip yimaado guriga, wuxuu arkay waalidiinta Simon oo u taagan sidii taallo iyagoo aamusan. markuu ku socdo gudaha guriga, Philip wuxuu arkaya sawir duug ah oo ay ka muuqdaan 4 dhalinyaro ah oo taagan meel u dhow tunnel yar, kuwaas oo ula muuqda dad uu horay u arkay. markuu jaranjarada kor ugu socdo, Philip oo ku wareersan halka uu ku yaallo qolka Simon ayaa si kooban u arkay qof xiran surwaal buluug ah oo maraya albaabka guriga. laakiin isla markii Simon ayaa soo muuqday, wuxuuna Philip ku casuumay qolkiisa. qolka waxaa ka buuxa sawirro iyo farshaxanno muujinaya muuqaallo cabsi leh sida jinniyo, shayaadiin iyo walxo kale. hawada gudaha qolka sidoo kale waxay u muuqataa mid aad ciriiri u ah. dhaqanka Simon laftiisa wuxuu u muuqdaa mid la yaab leh. wuxuu sheegayaa in guriga ay ku nool yihiin isaga iyo waalidkiis oo keliya, kuwaas oo si dhow ula socda noloshiisa. walaalkiis ka weyna mar hore ayuu guursaday, wuxuuna ku nool yahay meel kale. markuu taas maqlay, Philip isla markiiba wuxuu xusuustay qofkii uu horay ugu arkay dariiqa guriga. haddii ay dhab ahaantii keliya 3 qof ku nool yihiin guriga, yuu ahaa qofkii Philip horay u arkay. si uu su'aashaas uga jawaabo, Simon isla markiiba wuxuu furay albaabka qolkiisa, wuxuuna tusayaa dariiqa bannaanka, kaas oo hadda u muuqda mid ka mugdi badan sidii hore, isla markaana qof aysan joogin. kadib Simon wuxuu mar kale xiray albaabka qolka, laakiin isla markiiba waa la soo qaraacay sidii inuu qof bannaanka joogo. Can you go away, please? We're trying to talk. Can you help me? I'll try. kadib markii jawigu wax yar dego, Simon ugu dambayn wuxuu bilaabaa inuu ka sheekeeyo qiso yaab lahayd uu mar la kulmay. dhacdadu waxay dhacday habeen uu ku waday gaariga aabbihiis isagoo u socda guriga jid marakayn dhexdeeda. Simon weligiis uma sheegin waalidkiis inuusan weli ka gudbin imtixaanka darawalnimada. sidaas darteed habeenkaas si qarsoodi ah ayuu u waday gaariga isaga oo aan fasax u haysan. intii uu jirka ku jiray, aabbihiis ayaa soo wacay oo ku canaantay inuu guriga ka soo daahay. isla wakhtigaas wax ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday jidka, Simonna ma uusan helin wakhti uu kaga leexdo. gaarigii ayuuna ku dhuftay wixii.
markii Simon ka degay gaariga si uu u hubiyo waxa dhacay aad ayuu u naxay sababtoo ah makhluuqa uu ku dhacay ma uusan u ekeen bini'aadam caadi ah makhluuqaas wuxuu lahaa jir u eg bini'aadam laakiin wuxuu lahaa madax ari isagoo aad u naxsan Simon si degdeg ah ayuu ugu soo noqday gaariga wuxuuna u kaxeeyey sida ugu dhaqsaha badan ee uu awoodo si kastaba ha ahaatee wax yar kadib gaarigu si lama filaan ah ayuu u istaagay bartamaha keynta cidlada ah xaaladan ayaa Simon sii argagixisay sababtoo ah taleefankiisu gebi ahaanba wax signal ah ma lahayn wuxuu ka degay gaariga si uu u raadiyo signal ilaa ugu dambayn uu ku guulaystay inuu la xiriiro qolada jiidista gawaarida nasiib darro qoladan waxay imaan karaan qiyaastii 40 daqiiqo kadib isagoo keligiis ku xaniban keynta kadib dhacdadaas yaabka leh Simon wuxuu ku qasbanaaday inuu ku laabto gaariga oo uu sugo laakiin la yaabka habeenkaas ma dhammaan sababtoo ah wax yar kadib wuxuu dareemay in isla makhluuqii uu horay ugu dhacay uu mar kale bilaabay inuu soo istaago daaqada Fuck that! kadib markii uu maqlay sheekada Simon Philip wuxuu go'aansaday inuu si shakhsi ah u tago meesha ay dhacdadu ka dhacday halkaas Philip wuxuu ku arkay geed weyn oo dhacay markuu fiiriyey xididadiisa qaabkooda waxay si dhow ugu eg yihiin makhluuqa uu Simon horay u sharaxay si kastaba ha ahaatee goobtaasi waxay kaliya sii xoojisay Philip aaminsanaantiisa ah in sheekada Simon aysan ahayn wax ka badan aragti khaldan oo ay keentay cabsi ka jirta keynta mugdiga iyo cidlada ah kadib markii uu la kulmay labadaas kiis Philip weli si adag ayuu ugu dhegan yahay aaminsanaantiisii hore markii loo eego isaga sheekooyinka Tony iyo Simon ma cadaynayaan jiritaanka awood ka sarreysa dabiiciga wuxuu aaminsan yahay in sheekada Tony ay si fudud uga tarjumayso nafsiga gabadhiisa uu ku dayacay isbitaalka halka sheekada Simon aysan ahayn wax ka badan faham khaldan oo ku saabsan qaabka xididada geedka aragtida Philip waxyaabo badan oo ay dadku u arkaan kuwa ka sarreeya dabiiciga dhab ahaantii waa natiijada maskaxda bini'aadamka markay saameyn ku yeeshaan cabsida murugada iyo wixii la mid ah si kastaba ha ahaatee wax aad u yaab badan ayaa dhacay markii Philip uu ku dhawaaday inuu ka tago meesha markuu u tagay gaarigiisa si kooban ayuu muraayada uga arkayaa milicsiga muuqaalkiisa wuuna baabaa isla marka albaabku furmo kadib baaritaanku wuxuu u gudbaa kiiska saddexaad ee Charles siiyey markan Philip wuxuu la kulmay ganacsade taajir ah oo lagu magacaabo Meg wuxuu sheegayaa inuu la kulmay laba dhacdo oo yaab leh oo ka dhacay gurigiisa Meg wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo dhacdada ugu horreysay ee uu la kulmay dhacdadu waxay dhacday galab uu joogay guriga isagoo sugaya war ku saabsan xaaskiisa oo uur lahayd oo wakhtigaas loo qaaday isbitaalka dhiig baxdaran oo ku soo booday awgiis galabtaas wuxuu indhihiisa ku arkay dhowr shay oo si lama filaan ah isu tuuraya keligood intii uu sheekada sheegayay Meg wuxuu soo qabsaday qori inkastoo weli aysan caddayn sababta uu hubka u soo qabsaday haddana wuxuu gudagalay sharaxaadda dhacdada labaad taas oo uu sheegay inay ahayd mid aad u cabsi badan dhacdadu waxay dhacday habeen xilli jawiga gurigiisa uu bilaabay inuu noqdo mid aan caadi ahayn wuxuu sheegayaa inuu arkay muuqaal si buuxda ugu eg xaaskiisa oo si lama filaan ah hortiisa uga soo muuqatay Meg markaas wuxuu u sheegayaa Philip in isla maalintaas subaxdeedii loo sheegay in xaaskiisa geeriyootay kadib markii ay dhashay kadib markii uu waxaas oo dhan sheegay Meg wuxuu u muuqday mid rajo beelay isaga oo cabaystay qorigiisii wejigiisana waxaa ka muuqata inuu ku jiro xaalad nafsiyan ah ugu dambayntii Meg wuu isdilay isagoo adeegsanaya isla qorigii kadib markii dhacdadaas murugada leh dhacday Philip oo argagax aad u weyn ka muuqdo wuxuu isla markiiba ka baxaa meesha wuxuuna dib ugu laabtaa qolkii uu Charles ku noolaa isaga oo aan waqti lumin wuxuu si toos ah ugu eedeeyey Charles inuu ka dambeeyo wax kasta oo dhacay tan iyo bilowgii sida uu qabo Philip saddexda kiis ee la siiyey waxay u badan tahay inay ahaayeen xaalado si ula kac ah loo diyaariyey si Charles uu mar kale u helo dareenka dadweynaha Philip xitaa wuxuu aaminsan yahay in waxaas oo dhan ay ahaayeen qorshe loogu talagalay in lagu burburiyo sumcadiisa sidii in Charles uu doonayo inuu la wareego sumcaddii uu Philip sanadihii lasoo dhaafay kasbaday aragtida Philip saddexdaas kiis waxba kama duwana sheekooyinka ka sarreeya dabiiciga ee uu marar badan hore u kashifay dhammaan dhacdooyinka yaabka leh sida uu sheegay ma aha wax kale oo ka badan muuqaalo ka dhashay cabsi welwel iyo nafsiga dadka laga galo si kastaba ha ahaatee Charles wuxuu uga jawaabaa eedaynta isagoo leh xaqiiqadu mar walba ma aha sida ay dusha uga muuqato ka hor inta Philip si buuxda u fahmin waxa Charles ula jeedo Charles si lama filaan ah ayuu iskaga fiiqaa wejiga waxaa soo baxaysa in wejiga Philip arki jiray waayadan oo dhan uu ahaa keliya maaskaro lagu qariyey wejigii dhabta ahaa markii maaskarada la fiiqo Philip aad ayuu u naxay markii uu ogaaday in qofka hortiisa taagan uusan ahayn Charles balse uu yahay Meg laakiin weli laysma gaarin filimka qaybtiisa hore halkan ayay ku dhammaanaysaa haddii aad ka heshay ku soo qor kommentiga part 2 waad mahadsan tahay walaal haddii aad halkan nala soo gaartay waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe isoo dhahdo fiidiyowgana leeg ii saarto si uu meel dheer igu gaaro mahadsanid